ahaa shirkii boqol iyo 4 xukuumaddan qabato ay soo fadhiisato shirka ayuu noqonayaa tirada waxaan noqonayaa shirkii ugu dambeeyay ee dawladdan ay qabato muddadii 7 sano ahayd ee tirada dalka haysay waxaanu aad iyo aad u faraxsanahay maanta inay Soomaaliland meel wanaagsan marayso adduunku ma jeeranayo doorashooyinka aynu qabanay laba dhinac isu saaran tahay waxay lahay mahadiya xukuumaddan inay dhammaan hawlaha kharashkooda iyo maamulkooda iyo nabadgelyadooda furisay 9% waxay dhaqaalaha haddii yahay 9% inay dowladdu furisay hawshaa waxaa fuliyay dhammaan dadkii shaqaynayay ee dowladda ka tirsanaa ilaa waashmaan ilaa wasiir ilaa madaxweyne hawl la wada qabtay oo culeyskeeduna ku dhacay dadka shaqaynaya ciidan shaqaale mufakir wasiiro hay'ado madax bannaan dhammaan hawl loo gurmaday oo la isugu tegay iyo shacab oo raalli ka ahaa ayaa aad iyo aad loola hirgeliyey waxaan ugu mahadnaqaynaa qolooyinkii doorashada maamulayay guddiyada doorashada waxay la tahay inay guur weyn maanta adduunku uu qiraayo ay u tahay Somaliland dawlad iyo dadweyneba waxaan usii mahadnaqaynaa dadweynaha mar walba awaamirtii la soo qaadanayay ee isxilqaamayay ee bacadka taagnaa ee habeenkii u seexanayay dhaxanta waxaan leeyahay maanta waxaan ku wada faraxsanahay in doorashadii aynu qabnay doorashooyinka iyadoo laynu ictiraafsanayn iyadoo laynoo dardaar warinayo iyada oo aynu u socdaan colaado fara badan oo laysu kaashaday dad la dagaalamaya qarannimada Somaliland waxaan ku hambaliyanayaa shacbiga Somaliland iyo xukuumaddanba iyo xisbiyada mucaaradka ahaaba inaynu ku guntanay inaynu qarannimadeena hore u marayno adduunkana ku qancino inaynu nahay dad dimuqraadiya oo iyagu dimuqraadiyadda maamulanaya aan cid u tilmaamayn oo tallaabo aan ilaahay ka rajeeyay inay noo sii socoto waanu sidaa isu maamulo dalkeena doorasho iyo marwalba u guntano inuu dalku lahaa dhibaatooyinka jiro o dhanna insaa laysaa kaashadana waa la xaliili karaa haddii dadku ay si colo samaadaan intaa waxaanu dhaafaya ajendayaashii halkan aynu kaga wada hadlaynu ka doodaynay dhowr bay ahaayeen waxaan u dhaafayaa oo hawsha wasiirka warbaahinta oo isagu ay afhayeenka iyo wasaaraddiisa dowladda inay qodobadii laga hadlay halkan wixii ka soo baxay ay iyagu ummadda usoo gudbiyaan hal qodob aan doonayaa inaan ku daro xiritaanka guud waxa weeye maalmaha dambe miidiyaha oo dee dadka ka hadla ay taraarayaan ama ay ku kacayaan waxyaalo waxyeelaya guushaa guud aynu helay ee maanta adduunka o dhan lagu majiranayo waxa weeye dadka social media isticmaala qaar badan baa ku gafa oo hoos wax u dhimayo kale u ka baxa hadda waxaan sheegay waxa aad tabinaysaa waa inaan u noqonin wax ka soo horjeeda hawsha aynu wadnaa qaramiska dhammaan xisbiyada mucaaradka iyo muxaafadka waxaan leeyahay qolada mucaaradka ah waa hesheen doorashada waa midna hambaliyeen waana midna hambaliyeelaynaa qaran inaynu isaynu u jeednaaye idinka hadal dambe oo mucaaradnimo iyo turxaan hidee idinoo bannaanay bal isku noqon kulmiyana waxaan leeyahay war haddii doorashada laga yeelay shalay durhad baynu helay hore nuu sheeg qaran baynu dhisaynaa weli xilkii baynaa wareejinay inaga ahayn xilka waa wareejinaynaa markaynu wareejinayna muddo ayaynu ka dhur sugaynaa sida maamulka dowladdu noqdo dee umushaba waa la 40 bixiyaaye dowladahana waa la baxaaniyaa 100 cisho u horeyse inaad imika hadal dhagaha u daran ama su'aalada waxyeelaya ama afxumaad ka timaado waa ka mamnuuc haddaan murashaxiintiina xisbigiina nahay waana taageerteen waa dadaasheen waa ku mahadsantihiin waxaa kaloo noogu dartaa inaan idinka imika wax
xisbiyada imika doorteen weli xilkii la wareegin lagu maago iyo aflagaado iyo wax naxri dadka dadweynaha kulmiye taageero taasi iskuma ogina daaya oo joojiya haddaa mucaaradnimo u baxdeen markaynu hawsha mucaaradka bilowno markaana mucaaradnimo asluub leh oo qarandhisan noqonin intaasaan ugu horeysoo qoray midii haw sheegaya oon ka codsanaya inaga aqbalaan aada iyo aad baa u mahadsan tihiin khayr baynu isku ognahay qarankaynu wada shaqaynaynu isku ognahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu maanta waa arbacaa oo bisha 12 ay tahay 2024 waxaa qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland ka qabsoomay kalfadhigii 134 ee golaha wasiirada oo uu hogaaminayay ama uu guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland Muuse Biixi Cabdi kalfadhigaas wuxuu ku saabsanaa wuxuu marka hore ahaa kalfadhi ugu dambeeyey ee xukuumadda ay qabato ee golaha wasiirada ayuu noqon doonaa waxaana lagu diyaarinayay kow xil wareejintii oo noqon doonta mid ballaaran oo lagu wareejin doono xukuumadda cusub ee ay shacabka jamhuuriyadda somaliland doorteen waxaa kaloo u ahaa mahadnaq loo mahadnaqayay dhammaan dowladdii iyo ummaddii kale ee ballaarnayd ee dowladda iyo xukuumadda soo dhistay iyo shacabka somaliland sidaa awadeed qodobka koowaad ee la isla kartay aadna looga dooday wuxuu ahaa maadaama ay qabsoontay 13 November doorasho isa saaran oo madaxtooyo iyo xisbiyaal oo aad ballaaran oo aad culus waxaa la isla soo qaaday iyadoo ay duruufaha lagu leeyi jireen oo ay dagaalo ka dhaceen dhibaatooyin badan ay ka dhaceen inay xukuumaddu dhabarka u ridatay dhammaan wixii ku bixi lahaa kharash iyo ammaan iyo abaabul dhammaan inay xukuumaddu toortooda sidaa awadeed duruufaha iyo diyaargarowga iyo arooska iyo abaabulka ay xukuumaddu gashay waxaa looga jeeday oo ay ujeeddadu ahayd in ummadda reer somaliland qarannimadeeda lagu dhiso waxaa mudnaanta la siinayay qarandhis iyo in waddanka loo jiheeyo adkaynta dowladnimada iyo hiigsiga horumarkeena iyo aqoonsi raadiskeena taasaa wax kasta ka mudnayd cidda helaysa iyo ciddaan helayna taasay ka mudnayd xukuumaddu iyadoo dhibaatooyinkaasoo dhan ku jirta ay xoogga u saartay doorashada noocaas inuu hirgasho sidaa awadeed waxaa xukuumadda uu hogaamiyada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo kalfadhigeeda u dambeeyey maanta qabsatay ay mahadnaq ballaaran u jeedinaysaa taageerayaashii ballaarnaa ee labada jeer xisbul xaakimad doortay xisbiga kulmiye ee codkooda ku aaminay ee doortay ee ilaa xilligii xisbiga la aasaasayna barbar taagnaa aad iyo aad iyo aad iyo aad bay u mahadcelinaysaa xukuumaddu iyo golihiisa wasiirada waxay kaloo xukuumadda iyo golihiisa wasiiradu ay u mahadcelinayaan si ballaaran u mahadcelinayaan dhammaan shacabka reer somaliland ee 14 sannadood xisbiga kulmiye u doortay inuu adeego uu noqdo xisbiga adeega oo u saafgareeya shacabka reer somaliland oo masiirkoodii iyo ay ka talintoodiiba ku aamineen aad iyo aad ba shacabka reer somaliland aan ugu mahadcelinaynaa xukuumadda iyo madaxweyne iyo golaba inaan noo dooratay inaan idiin adeegno 14 sannadood haddaatii shacabka iyagii jamhuuriyadda somaliland xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisuna ay ku hogaamiyeen sidaa la socota iyadoo duruufahaas jirto doorasho lagu jiro lacagta la bixinayo oo dhibaatooyin dagaal ay dalka ka dhaceen haddana miisaaniyadda qarankuna isma dhimin sideedii bay ahayd sarifka iyo sixir barna dalkeena kama dhig waxaa laga yaabaa 5% boqolkiiba 5 inay isbedelayeen sarifka iyadoo jaararkeena ay mararka qaar boqolkiiba 5 isbedelayeen ama boqolkiiba 8 ama boqolkiiba inay inagoo duruuftaa ku jirna ay halkaa ay hor joogday boqolkiiba 5 difference ama boqolkiiba 8 boqolkiiba 7 mararka qaarba aan waxba isbedelayn
ugu dambeyntii xisbiga kulmiye wuxuu isu diyaarinayaa xisbi mucaarada oo waayeelnimo iyo xilkasnimo iyo lexjecel ay ku jirto. mucaaradda xisbiga kulmiye waxay noqon doontaa sida goobuu isla qaatay iyo hoggaankii xisbiga oo madaxdooda ay joogtayba inuu noqdo xisbi wax dhisa ee aan noqon xisbi mucaaradadiisu mid wax dhimisa sidii horeba loogu yaqaanay. maadaama higsiga iyo yoolka xisbiga kulmiye uu yahay qaran taabo gala oo ictiraaf hela oo horumar hela oo ummaddiisu ay la mid noqoto ummadaha horumar. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.